هذا كورة قصة وحالنا ماله شيخ كأها مركز شيخاني وأن رجاد ما هنا علمي جميع يقانو تدخل كواب صلاة مركز لكن ماذا أو ما هذا مالك تمام مرتي أو شيخ ولكن وحي قانا وحدتك كوا عدنا أولاهي قال تعالى إلى يحور فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا تكذا ما طاب لكم من النساء مثنى لبلبة تكذا أو حلقوا صلاة الصبح يو الرباعة يو الثلاثة والثلاثة والرباعة ثلاثة ومغربك والرباعة وأنت كلا مركب فانكحوا تكذا شيخ ويابي وحوري انتو الله هذا الآية إلهي بانكو دار شيء ما فانكحوا بها تكذا وحوري ومحيت هدينا هي فانكحوا تكذا محالو فسري كرا مركب سوية هو قرت مركب ماشي إلا سوق عليه بس إنه ماشي عشتين ورها بعضيهم وفانكحوا تكذا ليسيا هاتو وحوري دتك انتو الله الحور دقيست ninkaas bari subax ayaan masaajidka isugu imaanaynaa waana doodaynaa qofkii cilmi la idinkana kala saaraysiin dad dadweynihiin saddex su'aalood baan weydiinayaa haduu saddexda baan waan ka helo oo uu yiraahdo ha haduu ku jawaabo inuusan waxba aqoonin oo mid dhaalim ah oo aniga gardarhaysana inuu yahay saa uu ogaada waayahay bas meesha la isugu imaaday wadaadkina uu imaaday haye sheekhi haday ugu haysay fanku tukada aaway waa anigu ana kugu haysay fanku tukada ma ah markaas yiri su'aalan ku weydiinaya markaas yiri weydii ilaahi soo ma dhihin qul huwallahu ahad markaas yiri ha allahu samad soo ilaahi ma dhihin ha lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad soo ilaahi ma dhihin ha maxay tahay arbaax u dhax ku dhuftay wal isku booday marka ninka saddex mar ha ma kaga sii horta ha muxuu rabaa marka meeshu rabaa inuu qaso way isla qasantay marka dadkii waxay dhahaan marka culimada kala qabta هذا كسماي وحكى سعود هواي علماء كلا قبط